السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحربا إن هلكن كجهدلو موضوع جابن أو كسابسن هويو. الدبا هويو محي نجا مضنتهاي. هويو وواحد كلية آذن بدلن كرين. هويو ذا دبعت كستويلة ذهاي. وواحد أتكو بدلنين وحول بقدون كي. يضو يسيداتهاي عدنا واحد جرا والله أركا إن قاربضن أو إنجا مدة يسون جنين واحد احترام. الله سبحانه وتعالى وحو قرآن كيسو كلية هاي. waxa uu faray Allah subhanahu wa ta'ala in isaga la caabudo iyadoo aan waxba la wadaajinin. fiiri booska labaad waxa iska leh waalidiintina waxa kamid ah hooyo. saxaabi ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam u imaaday kadibna waxa uu weydiiyay rasuul Allah yaa igu xaqnimo badan. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri hooyada ilaa 3 jeer. waxa uu yiri marka afaraad aabaha. iyadoo hooyo abaalkeeda aan la gudi karin haddana waxa laga doonayaa inaad u ahaato bari oo aad marnaba ka hor imaanin. fiiri hal tusaale oo gaaban ayaan idin siinayaa. wiilasha waxay aad u jecel yihiin banooniga. tusaale ahaan adigoo banooni u socda ayaa waxa ku yeeray aabahaaga kadibna wuxuu ku diray meel kale. waad aaday adigoo aan warka keenin. u fiirsa hadda tan hooyada adigoo aan u socon banooni aanan hayn wax hawl ah ayaa waxay ku dirtay meel adigoo caajis isku ridayo waxaad leedahay hooyo ma qaban karo yaakhay. u fiirsa hadalka iyadoo hooyo ay leedahay kugu leedahay 3 jeer xaq waa aabahayay marka afaraad ayaa waxaad ku leedahay adigoo caajis isku ridayo sida. haddaba waa maxay sababta ka dambaysa arrinka? haddaba maskaxdaada weydii su'aasha. waxa kale oo marar badan dhacda inta badan dhalinyaradeenna waxay banooniga ku dheelaan wadooyinka ee meelaha aan munaasab ahayn sida wadooyinka xaafadaha dhexdooda. waxa laga yaabaa si kadis inuu banooniga ugu dhaco hooyo meesha maraysa kadibna uu si xun ula hadlo mid ka mid ah dhalinyarada meesha ku ciyaaraysa uu ku dhaho wax hadii isaga oo maqlayo qof kale hooyadii ku oran lahaa uu tamanin lahaa in uu qofka nafta dhaafiyo. ugu wax sahlan ma in uu nafta dhaafiyo laakiin isaga markuu dhahayo uusan u arkin wax dhib ah uu dareemin. waxaad ogaataa hooyo inay tahay hooyo hadii aadan ixtiraamin dadka waaweyn ee kale waxay ka dhigan tahay inaadan ixtiraamin waalidkaaga. ugu dambeyn waxaan kugu waaninayaa hadii ay hooyada dhimatay Allah u naxariisto. hadii ay ku nooshahay waxaan ku leeyahay ka faa'iideyso oo u baarin noqo u samafal u wanaag samee u qabo wax walba oo aad u qaban karto si aad u hesho ducadeeda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.